امتحانka shahaadiga ee sanada 2014 iyo 2015 ee fasalada afraad iyo sideedaad ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ayaa waxay maanta si rasmi ah uga bilaabeen guud ahaanba dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee gobolka Saaxil. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin ay wehelinayaan guddoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa kormeer ku soo maray dugsiyada ay ka socdaan imtixaankan shahaadiga. wasiir ku-xigeenka warbaahinta la hadlayay ayaa ardayda imtixaankan u fadhiisanaysa ee magaalada Berbera u soo jeediyay in imtixaankan si degan u galaan isla markaana ay dhowraan nidaamka imtixaanka. maanta oo xada bishu ay 7 tahay waxay noo bilaabmaya imtixaankii fasalada afraad ee form 4ka iyo ayreerka ayaa noo bilaabmaya Soomaaliland oo dhan ka dhacaya danka oo dhan waxaan u rajaynayaa guul ayaan u rajaynayaa gaar ahaan ardaydan aan halkan ku soo booqanay Berbera ama gobolka Saaxil waxaan u rajaynayaa guul oo ku ardayda ku galaysa dugsiga Buursada ayaan imika joognaa imtixaankuna si wacan oo nabadgelyo ah ayuu u socdaa oo habsami leh. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibrahim Digaale Maxamuud oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ardaydan u rajeeyay darajooyin sare ka gaaraan imtixaankan shahaadiga ah ay maanta u fadhiisteen. waxaana hadaladiisii kamid ahaa faako ay tahay taariikhda bishii 6 2015 waxa gobolka Saaxil waxa si caadi ugu bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe. imtixaanka waxa u fadhiisanaya arday 400 arday oo secondary iyo 600 arday oo dugsi hoose dhexe waa ardayda guul baan rajaynayaa sidii sanadadii hore baan keeni jirnay kaalmaha hore aad iyo aad baan ugu rajaynahay inay sanadkan guul ka soo hooyaan imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Niyo magacaygu yahay Khalid Xasan Kharash kana mid ah ardayda imtixaankan u fadhiisanaysa maanta. alxamdulillah horta si nabad ah noogu bilaabmay jawi degan imtixaanku ilaahayna waxa ka rajaynayaa in maalmaha dambe uu sidaas nagu wado ilaahay idinkii lama waxa guul u rajaynayaa ardayda Soomaaliland gaar ahaan ardayda magaalada Berbera ka galaysa Buursada iyo Cabdisalaam insha Allah guul baan isku rajaynayaa.